wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya mudane Mahad Maxamed Salaad oo maalmahan baa socdaal shaqo ku joogay waddanka Finland ayaa maanta khudbad ka jeediyay shir ay iskugu yimaadeen madaxda jaaliyadaha Soomaalida ee ku dhaqan wadamada waqooyiga Yurub. Shirkan oo 2 maalmood shalay iyo maanta ka socday magaalada Helsinki ee xarunta dalka Finland ayaa waxaa soo agaasimay madaxda ururka midnimada Soomaaliyeed ee dalka Finland. Ujeedada looga gol lahaa shirkan ayaa waxay ahayd sidii wada shaqayn ay u yeelan lahaayeen ururada matala jaaliyadaha ku dhaqan wadamadan waqooyiga Yurub. Shirkan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin kala duwan oo Soomaali iyo ajaanib isugu jira. wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo kamid ahaa madaxdii halka lagu casuumay ayaa waxaa hadaladiisii kamid ahaa. waxaan rabaa wax yar inaan dul maro Soomaaliya kuleyba wax hadda ka jira waxaan malaynaa inaad dhammaantiin ka wada dhagsan tihiin horumarka laga gaarayo hadday noqdaan dhinaca amniga la dagaalanka kooxaha nabadiidka waan isleenahay alxamdulillah Soomaaliya maanta 80% waa laga sifeeyay inta hartana waxaan rajeynaynaa insha Allah in la dhameystiri doono bilahan ugu soo socda hadii Allah uu ogolaado. Soomaaliya sidoo kale inay u gudubtay dhismaha hay'ado dawladeed oo dimuqraadiya oo nidaamka ku shaqeeya oo qodob waliba leh burbur kadib dhowr 20 sano dalka gudihiisa in doorasho lagu qabto oo ayadoo dawlado kale aysan noo imaanin ummadda Soomaaliyeed santuuq cad inta la dhigo ayagoo isku doortaan waxay fursad la gaaray isqabasho markay timaadina ayada dastuuriga loo laabto dagaaladii aan dib loogu laaban ayadana waxaan isleenahay waxyaabaha muhiimka ah Soomaaliya hadda dhaqankeeda laga bartay ahayd. dhanka kale waxaa shirka ka soo qayb galay oo isaguna khudbad dheer ka jeediyay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Finland mudane Erkki Tuomioja. waxa uuna tilmaamay in Finland iyo Soomaaliya burburkii Soomaaliya ka horna ay xiriir wada shaqayneed lahaayeen haddana uu soo laabtay xiriirkaasi. dowladda Finland ay mashaariic badan hadda ka fuliso dalka Soomaaliya ayna ku faraxsan yihiin in uu maanta xiriir wanaagsan ka dhaxeeyo labada dal una rajeynayay in xiriirkaasi halka uu ka sii socdo. gabagabadii shirka ayaa waxaa ka hadlay qodobadii ka soo baxay iyo sida uu u dhacay bashirku gudoomiyaha jaaliyadda midnimada Soomaaliyeed ee dalka Finland mudane Carshe. hadaladiisina waxay u dhaceen sida tan. waxay go'aamo ay ka mid yihiin kow in la iska kaashado sidii loo xoojin lahaa loo ilaalin lahaa dhaqanka Soomaaliyeed luqadda Soomaaliyeed iyo diinta Soomaaliyeed ee ku nool Soomaalida ku nool wadamadan waqooyiga Yurub. waxaa ka soo baxay in la dhiirigeliyo ganacsiga dadka Soomaaliyeed ee leeyihiin oo xawaaladaha oo kale la wada ilaaliyo waxyaalahan hadda soo baxbaxayo in akoomada laga xiro loo diido oo kale in arrimaha ganacsiga la dhiirigeliyo wixii caqabadaha ku soo baxayana laga hortago si midaysan iyadoo wadamada aan iska wada kaashanayno wadan kaliya oo ku Finland ee loo wada istaago. waxaa ka soo baxay in maaragtay daraasad lagu sameeyo way dhalinyaradeenna ay maaragtay waxbarashada ugu horumari laayeen way shaqada loogu horumari laayeen waxaas oo dhan bal inaan daraasada anagu leenahay aan daraasayno waa soo baxay. waxaa soo baxay oo kale isla qaatay inaan si guud aan saameyn ugu sameeyno anagoo wada jirnad jaaliyadda Finland iyo Sweden iyo Norway siyaasadaha arrimaha dibadda iyo horumarka ee wadamadan ee ku wajahan Soomaaliya. waa go'aamadii aan isla qaadanay. Maxamed Xasan Mataan, telefishinka Kalson TV, Helsinki, Finland.